wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin dhammaantiina meel kasta adduunkaaga joogtiin waxaad ila dhacda wanaagsan ahi videogan waxa waaye video xamaasadiisa iyo wax walba wato waaye. videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been ma idiin sheegayay ani laba rakac soo dugtay maxamuud laba rakac soo dugtay gacanteedana waxaa ku jiro kitaabka ilaahay. wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa wax walba si ilaahay la ogyahay aan u sheegaa. midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay. sax ma fahmaysaa? sax marka ma ahayn in meeshan la keeno laakiin sidii dad badanaa ku wareeray arintan yani dad badanaa falanqeeyay dad badanaa say rabaan yani nin walba fikradiisa kusoo bixiyey sidaa loo cadeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahay nala og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yawma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaahay uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno siday wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaanee. kitaabka waa kana maxamuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha i jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegayo waa run. adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaan ku dareen kitaabka ilaahay quraanka kariimka waa arkaysiin. marka kitaabkan inta video aan dhameynayno intaas noo yaala wax been aan sheeg marabna anaga. horta sheekadan waa la socotiin dhammaantiina qof aniga xaaskayga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay. arrintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheega waaye marka horena saa idin caddeeyo waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jiray aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama aasqabi ma jiro ilaahan ku dhaarta ilaahana ii jeedo. sidoo kale waxaan arkayay dad badan dhahayaan kamaal gabadhan waa sixradi. horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala abaal ah wallahi inaan isku dhaqaaqaynin aan hubaa aniga kaba soo qaad yani gudub qof yani wax iska dhaha waay xaqiiqada may horta waxayna ka dhahaa taas sixirka haddii aas noqdo ma aha taas ma ku saabsan shahaado zuur yani qof waxaad ogeen qiila waqaala qofaa ku soo dhahay ama qofaa ku soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkeena wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican ha ana ma kula xisaabtamay ninkan ma kula xisaabtamay yani adi iyo ilaahay sax waay. marka su-aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama lasoo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen. sidoo kale sheekadan hadda in aan lasoo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda. baryahan dhan anaga wallaahi been ma idiin sheegayay ma seexanin ani maxamuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna keliya xog rasmi ah xog xaqiiqa ah waxa lanoo sheegay kulley waxaa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto masti hal eray ma isku raaci karaan hal eray ma isku raaci karaan. marka wax walbo ku saabsan xogta aan helnay maxamuud aa ka sheekeyn doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa. marka maxamuud aa u wareejinaa wallahi been ma idiin sheegay video aan duunan balakoonkaa joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma malaysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay. marka hadda aa rabaa maxamuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raacay asiga ka waramaayo. soo dhow maxamuud. soomaaliyeed meel walba joogto dhammaantiin way salaamayaan horta arrintan cirka isku shareeraysay dad badan yani soomaali oo dhanba dheh way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaa'id ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta siduu ilaahay ila ogyahay arrinta uga hadlaya kamaalna yani waa la hadli karay arrinta waxaa sameeyay horta anaa sameeyay
xiriira waxaan sameeyey inaa yani dadka ayada relativekeeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka kamaala u bandhigay marka kamaala waxaan dhahay arrintan saan loogu hadlooyo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yani idhahoyso oo dhaariyey oo ani idhahoyso yani ma qabo yani mana lee qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar waay waa og tahay cidlamaa ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay ugu khasabtay inaan ani raadiyo keligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay maxamed la dhahay isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas aan raadiyay mustaqaaniinaan lahay ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanaya oo mas'uuliyiin ah marka ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid waa sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan haddana waa ka soo tagay nin kale waxaa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eeda kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaam habareerteed waa la hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xumburo in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yani haduu ciyaalnimadaada ku yaqaanay xitaa waxa ku dhedheelayso sheegaya ma fahantay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ee cadaatay kamaala marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay kamaal arinta mislu ogyihiin wallahi oo billahi habeena kurbeysna inaan isla ogeey maxamuud ma waa ogaaday markii isina aniga marka maya ilma dhashiso kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guuliso maxamuud aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin haddana waa raadiyay haddana yani dadkii kale familygii kale waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyow kamaalow saanaa jirto arinta dhanna waatana hadda adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabbaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka kamaala ku soo wareejiyay kamaalkii marka waa fahmay kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintan waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yani magac ilaahay ka weyn dhaar ay tagtay arintii marka xaqiiqadii wixii aan soo ogaaday informationkeeda hadda wax aan la sheegi karin yani xaqiiqooyinka dhan waxa jirto wax oo family issue ah oo waliba top secret ah markaas soo ogaaday ayadana aan la socodsiiyay ay fahantay markii dambe yani alxamdulillah afkeeda ka qaratay ma fahantay marka kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arinta kamaala u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka kamaala marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka inaa ka hadashid ay sheegtid waaye wixii bayaan yani wixii oo aragtay ilaahay kula og yahay صح وأنا وحن قرن مع صوته حتى فيديو عن دور دقيقة دوين حتى نص عمرنا دقيقة دوين كدب بس مركي فيديو وعدين تو نشوف ريسك وحنا قرنا يمجرو لكن مركي هره خفك عليك حاس كاجة عديس كله أنا علم مدلين واللي يحب سومرين وأمينين صح إلى خوف كان مركش كاسيس وجيه مخر محمود هذا أنا مدة كلا دتك فانسينا جرتو مركا لطها خوف كان يعني هبلاية وسانا كسميسي يعني ما ديه كرو
يعني adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan haduu dhihi lahay waxayse public soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arintaas shaki waa dhalin kartaa ase xitaa shaki waa ku dhalin kartaa ina ka yani taas ina xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiya jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin hadaa dhaho يعني قفكن أسعد دلي أسيجن قدوه ما دلين يعني confuse عن قناة ما فهمته مركا أرنتنا وحاف في عن مركا حير كان أكل مريس إتوسي أو إتابسي مركا ملا الرابع إن على هذه يعني ملا باهنين مركا أدنى يعني وكو قرابة يعني يعني أو عيال قف يعني عيال دفيريسو يعني حوجا وحنا قناة وحلا ياب له dadka dhan ay la yaabayaan oo qof bini'aadan sameeyeen kullee wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan karo maaha wax laga socon karo maaha wax in dadka loo bayaanay u baahanna waaye sida la ajligeeda oo soo fadhiisanay oo arinta sida saxda ah u jirto oo ani ilaahay ila og yahay ninkana ilaahu ila og yahay marka inaan la soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi karo ani ma aqaani marka kamaal ay u taalaa horta intaas waxay ka dambeeyay maxamuud dad badan la hadlay dad badan wax uu cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas ma sha Allah si fiican ay wax walba igu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore koow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyay sababtoo ay qof ciyaalkiisa ingiriiska ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyay maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahay way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsana laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay aan hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tagay ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana aan xitaa cadeen muu haytaas in as qawli in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qoldanahay hal mid aan gelin ka bixinaa midaas oo in arintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku indhaadayga laakiin maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtan ku dhageysid may qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawaabun ano khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay ma ii arinkan wallahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen kamaal arintan sax waa ama sixran tahay adi ama lagu sixir ama lagu taat wallahi marar badan ay lahay waxaas ma ana waxa diida wax qiila waqaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hubaal iyo xaqiiqi iyo marqaati u haysan yani adna aad hubin mala sheego waxa noqonay xan مفهمي صح إلى أن كل حساب طماعي هذا ما أوجد حالة قفك وجان كرب احتاجن مفهمي ضد بدن وأركان قلت إله الدم بين الله ضمانتنا مرجو حواي إلى هينا وحواي غفور رحيم واي لكن قف هذا خلق في شيء أم يحس أهين أكوت المادي مرجو قف كاسنا أتكت أسي وأقولاش أو عفي موجي سكلم يعني إله أن عفينا إلهي تيسو كعفين كلا غفور رحيم مركا على أنت ماشي سك أكتر مركا كمال هذا كله كبون تذكر أو شيء أورتا أنيجا
arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ay u inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi dad badan ayaa dhahay Kamaal gabadhan xaaskeyga waa yaas dhahay hadda ma xasameyn doonaa hadda ma xal gudboon marabi in social media aan ka sheego wixii aniga sameyn doono hadda kadib waxaan sameyn doono waxaas noqonaa waxyaabo aniga private ah wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan sameyn doonaa marabi social media inaan ka sheego balan waay anigana waligay xaqa u istaaga waligay qof ma dulbin dooni waligay wax oo aniga arko inaas khalad yahay marku inda adeegi dooni sidoo kalena waxan hadii soo baxo hadda hal mid gudbo Maxamuud qofkan ciyaalka waa dhalinyaro lahayd mid kale soo yeeri doonto oo private ahaan isoo gaari doonto waxay noqonaa xarig inaas ku xiran yahay ama ku xirneen wixii aan sameyn doonaan ku dhahay markaas diintas ku salaysan oo family dadka ma dad ma yani inta maxkamad ma aha dad la leeyahay dadka yani family-ga yani wixii la sameyn lahayd yani aadinta private ahaan laakiin waxa wala sameeyay insha Allah arintana sidoo kale dad badan ka soo hadleen taasna ogaan daraa u geesi haddii aadan wax ogeyn waxaan ka codsanaa walaalkay ama walaashay arintana ka soo hadleen adoo si wanaagsan wax ugu sheegi kara yani si qaldan ugu soo hadlay sax waa hadaadan yani ka hadli karina reaction-kaaga ka bixi iska dhaaf waxaan hadda views waaye adduunyo waaye ilbiriqsi waaye sikin waaye waa dhimane isla markii intay kaaga bilaabanay godkay kaaga bilaabanay sax waa marka waxaan damiirkaaga iyo qofka wixii oo isla markaas soo dhaho yani aad ogeyn hal dhinac inaad soo qaadatid isla markaas oo qofkii ay iyo waxa loo joogay inaad kula dilacdid ma wanaagsan wax qof weyn sameyn kara yani hor Soomaaliyeed waa u badanahay yani waa la isku qaadanaa laakiin ma wanaagsan qofka adoo wax fiican u sheegi kara yani ama iskaga aamusi kara maxaa caynay haddana arintan ma dhex joogtid يعني gurigii waxay ka dhacayaan ma joogtid marka maxaa caynay muxuu ka galabsaday marka wallahi aad ugu xumaa taas laakiin waxa waa caafiya waxa waa maadana waa ku celinaa ilaa dambigeena dhaaf cidii si qaldan u hadashay comment qaldan soo qortay cidii reaction qaldan ka bixisay ilaaha arkayo soo marka aan intaas ugu baxaya كمان نكسي ورجينا إن شاء الله مركا حضل بدن حام بحشو كلي أنا وحي حقيقة هو أوغاني وحي ربط وحي حق وان أوغاني ما نفعنا أني والله بين بدين شيء علوش وح عنكو خرصنا ما هستي وحان آت أقول حمادي إن أنيجا اللي يقول تلمام وقف وح أدونك أقول ليذن ما حكم كيس هذا فاهم لهن حكم كيس هذا فاهم لهن والله ممكن دق لهن يعني ما عندنا ويت هل سؤال يعني كفتنا حتى أوقات قفك يعني هادو سحر ساس باوركاس أسرية ضدك آمين سن هادو باوركاس سرية بيل جيتس كبدي سما أنا هذا السحر كوكانسل برا صحوة يعني بيل جيتس أما إسكدافة ضد كان تاجرين تقبله هذا ما السحر كوكانسل مرك عقلك عشقية وحلا فهمه معناه هادو قعمانا وحكو قرطوا لقوا حسابنا عربكم لقوا حسابنا والله أنت بدنا أركي كومنتي إيزو خراي كمال ساس إيساس هاي أنا دم بيدي هستي وإذا عفية وإذا ما فهم سنين وقال درا يعني وقال درا إدي هيسي ما فهم سنين يعني عافية لكن هذا كدي كبارن تجا مرك إن شاء الله كل فيديو نزول على مرة مهم ده هذا الكيجا أما قرانك هذا الكيجا وحسن قناع حد كدي wax social media arintan imaan doono ma jiro wixii diinta ku salaysan wixii xaq ah ani waan ogahay ana xalsanayo sheekada meesha ku dhamaadi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh